kadib qaraxii bambaano ee ka dhacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa si weyn isu bedelay jawiga guud ee Islii marka la eego ganacsiga iyo waliba nolosha dadweynaha kooxa lagu sheegay tuugo darbijiif ayaa qaybo kamid ah xaafadda Islii ka bilaabay fawda ku aadan beegsiga ganacsiga iyo waliba dadweynaha inkastoo xaaladda iminka aad u degan tahay fawdaduna aysan ku salaysnayn qaab isir nacayb ah balse qalalaasa wadayaashu ay yihiin kooxo bulsho waliba dhibaato ku haya marka la eego qaabka ay u dhaqmayaan booliiska ka hortaga rabshadaha ayaa la soo dhoobay goobta qaraxa uu ka dhacay xaafadda Islii iyagoona si weyn ugu hortagaya fawdada iyo waliba rabshadaha ay wadaan kooxaha tuugada ah inta badan xaafadda Islii iyo waliba goobaha ganacsiga waxaa gaafureegaya ciidamada dalkan ee loo yaqaan GSU-da waxaana ay sugayaan amniga iyagoona ilaalinaya in fawdadu ay sii badato waxaana sidoo kale xusid mudan inay si weyn u hakinayaan qolyaha rabshadaha wada ee doonaya in dhibaatadu ay sii wadaan xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamukunji oo xaafadda Islii ay ka mid tahay Yuusuf Xasan ayaa ka warbixinaya xilliga ay rabshadaha bilowdeen iyo waliba xiriiro kala duwan oo la sameeyay dawladda si ciidamo badan loo keeno xaafadda Islii ammaankana loo adkeeyo daltaniya intii uu qaraxa dhacay oo dhowr qof qaraxaasi ay ku dhinteen waxa xaafadda soo hujuumay niman tuuga ah oo xaafadaha kale ka soo galay oo doonay inay xaafadaha ay bilaleeqaystaan ganacsiga dadkana ay dilaan marka tan iyo shalayto anigu waan joogay xaafadda markuu qaraxa ka dhacay waan imid waxaan u qaylo dirsanay dawladda askar dheeraada ayaa la keenay askarkaasna iminka waxay ilaalinayaan meelaha laga soo galo xaafadda xildhibaan Yuusuf ayaa ku sifeeyay dadka rabshadaha ka wada xaafadda Islii kuwa la soo abaabulay si ay u dhacaan ganacsiga Soomaalida ee xaafadda Islii balse waxa uu sheegay inaysan ku guuleysan doonin labadaba waxaa jira dad laga soo dhaadhiciyay in qaraxu ay dad Soomaaliya ka dambeeyeen oo fikradooda ay markaa tahay inay ka argoostaan ama se ay dilaan dadka Soomaalida ay arkaan dadna laakiinse waxay ujeedadoodu ay tahay inay ka faa'iideystaan mushkilada jirta oo ay bilaleeqstaan oo ay xoolaha Soomaalida u qaataan xaafadahan ay ka yimaadeen waana xaafadda nagu xigtay Madaare la yiraahday intooda badan ka soo baxeen inkastoo ciidamo dheeriya la keenay xaafadda Islii haddana waxaa soo baxaya waxyeelo dadka deegaanka ay ciidamada ku hayaan laftooda kuwaas oo baaranaya guryaha Soomaalida xilliyada habeenkii iyagoo ku andacoonaya in baaritaano ay sameynayaan waan maqlay wararkaasi habeennimadii in xaafadaha qaarkood ay niman tuuga soo galeen oo ay boobeen dadna ay ku dileen oo ama se ay dhaawaceen laakiinse tuugadu way jirtaa horeyna way u sii jirtay waxaan u malaynayaa walwalka iminka jira oo qaraxan uu keenay bay ka faa'iideysanayaan dadkaasi xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa sheegay inaysan jirin weerar isil ku salaysan oo Soomaalida oo kaliya loogu talagalay balse waxa uu sheegay in tani ay ka mid tahay rabshadaha ka dhaca dalkan Kenya Xaaji Xasan Guuleed gudoomiyaha ganacsatada xaafadda Islii oo ka hadlayay qalalaasaha ka jira xaafadda ayaa qeexay inuu u malaynayo in la soo diyaariyay oo la soo abaabulay qorshaha lagu curiyaaminayo ganacsiga xaafadda qaraxyada ka dhaca inta badan xaafadda Isliina aysan Soomaalidu asal iyo raadba ku lahayn arrimahan muddo badan bay soo dhaceysay qaraxyadan waa iska daba imaanayeen marka maalinta ka sii dambeysana waa sii kordhaan maanta waxay joogtaa meel shacabkii Kenyaanka ahaa oo markii hore caadi u ahayn markay qarax u dhaco Soomaalida in la dagaalamaan in ay Soomaalida soo aadeen niman tuuga ah oo ka soo baxay xaafadahan islaamska u dhow Islii tuugtaas ujeedadoodana waxa weeye inay wax dhacaan ay wax bilaleeqaystaan marka waa wax ay u egtay in la diyaariyay oo laga soo shaqeeyay gudoomiyaha ganacsatada ayaa difaacay xaqa ay u leeyihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii inay ka walwalaan dhibaatada ka soo gaari karta qalalaasaha ay wadaan kooxaha tuugada ah ee doonaya waxyeelaynta goobaha ganacsiga xaafadda Faaduma Maxamuud waxay ka mid tahay dadka deegaanka xaafadda Islii waxaana ay ka warbixinaysaa qatar ay ka badbaaday xilli ay ku sugnayd meel ay aad ugu badan yihiin dadka asal ahaan Kenyaanka waxaana ay sheegtay in indhaheedu ay qabanayeen dad Soomaali ah oo la waxyeeleeyay
magacii waxa la faado maxamed ina barbare oo macnaha meeshan ku muraayada laga jibinaya bis anaga marka cabsoonay oo aad cabsan laami ku soo carab kooxdii soo bursatay ani maamo isla socon waxaan galnay meesha sariiraha qol ayaan nagu xareeyay ha baska igu horeeyay laba gabdhood iyo waxa saarnay Soomaaliya dad badan saarnaayeen laba gabdhood iyo wiil macnaha waxa lagu dhigtay baangad wiilkan daqara lagu dhigtay dhagaxa lagu dhiftay sidii marka maxaa lahaa iyagoo dhig ka socdaani bis anaga isla marka nimanka adoontiya waxay dhahay maadaama Soomaaliya inta lagu dilay adna inta ku soo xaro nimanka adoonta qaar ay badbaadiyay qaar markay ugu soo yaacay iyaga celiyay waxay gnay meesha sariiraha dadku ku nool xaafadda Islii oo muujinaya in jawiga uu degan yahay ayaa haddana baaq u jeedinaya xildhibaanka degmada Kamukunji Yuusuf Xasan mas'uuliyiinta ganacsiga iyo waliba dawladda Kenya iyagoona ka dalbanaya in xaaladda wax badan laga bedelo wallahi ilaa shalayto dhibaato meesha ka taagan Soomaalidu waa iska yaacayaan iyagan waxba dhibaato jidin baa dadka qaar iska yaacayaan Soomaalida waxaan ugu sheegay ugu baaqaya inay wax way istijiyaan dadkan foodada wadana ay waxa way qofkii dhagax ku soo tuuray dhagax ku tuuran dadkan meesha waxa way nidaam baa jira dalka dawlad baa ka jirta in walba hantidiisa ka carara ma inta joqora inta soo arursadaan dadkan ay ka carara magacayga waxa la caato waxaan ku maxamed xasan hadee xaafadda Islii waa iska jahwareersan tahay businesska waa xirmay ilaa saaka macnaheeyo ilaa shalay hadda dawladdu waxaan ku codsanaynaa meesha nidaam administration jira in wax laga qabto arintaas qarax anaga kama dambeeynin anagana waxaan nahay dad Soomaali isku man xirnin hadda isku xirnaan leen dukaamadeen maanta ma xirnaan laheenin dukaamadeen waa inaan furanaa dib u furnaa cidna ka baqin halkan waa suuqa weyn ee Gaariza Lodge iyo waliba halbowlaha ganacsiga xaafadda Islii marka aad maqasho Islii waxay indhaha u qabanayeen dad yow aad u fira badan oo Soomaaliyeed iyo waliba goobo ganacsi oo xiran laakiin haddana ganacsigii waxa uu noqday mid gabi ahaan ba isna xiran kadib qalalaasihii ka dhacay xaafadda waxaana tani muujinaysaa khatarta faraha badan ee Islii ay wajahayso waxaase jira dadaal fara badan oo dawladda ay wado oo ku aadan in shacabka Soomaaliyeed iyo hantidoodaba la badbaadiyo Maxamed Cusmaan Xabiib Royal TV Nairobi